haddana waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdidaahir Yuusuf oo ka hadli doona soo dhaweyn doona murashax Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi soo dhaw Cabdidaahir السلام عليكم ورحمة الله waxaan u istaagay Cabdisalaan Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi inaan soo dhaweeyo laakiin intaan u yeerin musharaxa oo aan hor keenin waxaan rabaa wax yar oo background ah inaan bixiyo sababta Cabdiraxmaan loogu baahan yahay Cabdiraxmaan baahi xog loo qabaa khibradiisa aqoontiisa hogaamintiisa baahi xog loo qabaa waxa uu qabtay Soomaaliya badbaado qaranka maxaa laga badbaadinayaa ayaa laga badbaadinayaa muxuuse qarankaas u ahaan jiray maanta si muxuu yahay waxaan rabnaa halka kan caawa inaan ka bilowno dad badanna waana fiirsanayaan inteennana waynaga meesha joogna waxaan rabnaa caawa inaan halkan ka bilowno waana socotay caawana waa bilaabaynaa duulaan qaranka Soomaaliya lagu badbaadin lahaa maxaa ka jira maanta waxa Soomaaliya ka jira maanta maxay yihiin anigu wadanka waxa ka tagay waqti aad u horeeyay 77 ayaan wadanka baxay waxaan ku laabtay 213 dabadigeedii baan ku laabtay markaan ka tagayay waxaan ku koray Soomaaliya markaa waxay jirtaa markaan ka tagayay Soomaaliya waxay jirtaa 60kii ilaa 77 waa 17 sano bay qaran tahay Soomaaliya anagu dalkaas aan ku dhex koray waa iskuuladii baa ka soo baxay inaan 60kii gobonimada qaadanay waa ogeyn laakiin Soomaali qable oo isu haysata adduunka oo dhan inay ugu fiican yihiin ayaanu ahayno saasana lagu barbaarin jiray Soomaaliya markaas waxay haweysatay markaan wadan ka baxay waxay ahayd September 13keedii 1977 Hargeysaan joogay maalintaas Hargeysaan ka baxay waxa soo gashay baabuur fara badan oo ka timid Jigjiga oo ciidanka Soomaaliya maanta waxay qabsadeen Jigjiga sababta hadalka u sheegay waxa weeye dal dhowr kun oo sano jiray ayaa Soomaaliya oo 17 sano jirtay haweysatay inay qabsato dhulka qabsato ay haysteen dhulkeedii la soo noqoto qarankii ka soo kacay oo madaxayga ku jiray saas uu ahaa 17 jir haweystay inuu qabsado Ethiopia inuu qabsado oo anigu waxaan joogi jiray xeryaha waxaan ku dhex kortay reerkaygu askar buu ahaa waxaan ku dhex koray xeryaha askarta waxaan xusuustaa iyadoo loo diro Guinea Bissau iyo wadamadii South Africa ahaa oo dagaalamayay ciidan Soomaaliyeed iyo tababarayaal Soomaaliyeed in loo diro iyadoo loo diray xusuustaa wadan soo kacaya haybad leh qaran xoog leh ah Africa markaas ay socoto wixii aad garanaysaan hadii qofkii dhalinyarada idinku batatiin baa laga yaabaa laakiin hanuunintii iyo dagaalkii iyo wixii socday waa garanaysaa waagaas wadan noocaas ayaan ka tagay waxaan ku noqday 2013 xamar baan tagay gaalkacyaan tagay waxaan arkay meel waxay tahay aan garanay baan arkay waan ogaa dalku inuu galay civil war dagaal sugay inuu galay waan ogaa inuu burburay waa ogaa dawladina ay jiray waa ogeyd laakiin wixii aan arkay waxay ahayd wax iga ficiyay oo ah waxaad og tahay laakiin markaad aragtid visually markaad ku aragtid waa ka duwan tahay waxa dhegta ka maqashid waa ka duwan tahay marka qaranka noocaas ah oo markaas dalkeena waxa jooga ciidan shisheeyaa jooga dhowr iyo 20 kun oo ciidan jooga beledweyne iyo wixii ka rogan koonfurka xiga ciidan baa jooga dawladdu waa leenahay laakiin dawladdu waa magacuyaal dibadda naloo ka taliyaa UN-ka naloo ka taliyaa beesha caalamka naloo ka taliyaa inagu ma madax banaanin madax banaanadeenna waxa laga yaabaa inay luntay bay u muuqataa markaas
waayo haddii ciidanku dul fadhiyo dalkaagu xor maaha runtii marka la eego marka dalka noocaasa ayaa maanta jira waxa intaa u heliya dalka Soomaalida oo maanta dhaqan boqolkiiba 7 haday ka badnayn waa dhalinyaro aan xusuusan qarannimadii Soomaaliya waxa ka sheekeynay dalka noocaasa oo dhaqan wareeg ku dhow maxaa la yiraahaa dhaxal wareeg miyaa la oran jiray ku dhow oo baaba ah oo dhalinyaradiisa ay garanayeen qarannimada Soomaaliyeed iyo qarannimada Soomaaliya waxay ahaan jirtay iyo geeska Afrika waxaanu ka ahaan jiray iyo Afrika waxaanu ka ahaan jiray iyo adduunka waxaanu ka sameyn jiray maanta in la soo celiyo ayuu u taagan yahay astaanta halkaan taalo oo ah badbaado qarankaasi la soo celiyo la soo nooleeyo nasiib wanaag waxaan halkaan nala jooga nin diyaar u ah arrintaas inuu qabto waqti badan geliyay mabda'iyan hufnaan aqoon khibrad intaas oo dhan isku darsaday ayaa halkaan nala jooga marka waxaan rabaa dadka Soomaalida oo na fiirsanaya inay ogaadaan dalkeenii si loo badbaadiyo qarannimadii Soomaaliya loo soo celiyo madax bannaanidii Soomaaliya dib loogu hanto in Soomaaliya in la mobilize gareeyo shacabka Soomaalida oo adduunka oo dhan ku baahsan oo qaxootiga meel kasta ku ah in ay dalkoodii say ula soo noqdaan oo dalka adduunka ugu fiican oo resource ahaan markii Soomaaliya la eego meelaha waxaan ka akhriyay Soomaaliya markii la fiiriyo resourceska ku jira iyo waxa ay noqon karto waxay gelaysaa dalka lixaad ama toddobaad ayay gelaysaa adduunka oo dhan marka la isku daro xoolahooda kalluunkooda macdantooda shidaalkooda waxaas oo dhan marka la isku daro resource ahaan waxay gelaysaa top 10 haday ahayn 5 iyo 6 iyo 7 meelahaas ay gelaysaa meel badan baan ka akhriyay adduunku waa wada ogsoon yahay qolada kaliya oo aan waxa ogeyn waa shacabka Soomaalida weey iyagoo dalka noocaasa ku nool oo leh ayay haddana qaxooti adduunka oo dhan ka yihiin oo ku baahsan yihiin si dalkoodii iyo waxa ay noqon karaan dib loogu hanto waxa weeye in campaign-kan ololahan hadda bilowga ah inay ka qayb galaan dalka Soomaalida unfortunately waa ku dheeraaday waa ka baxaya waxa lagu sheekaystaa qofka musharaxa hebel yaa wata dawladda wata waagaan koreeyay waxa saacib bay ahay qof dawlad kale wadato waa jaajuus qof dawlad kale wadato dana dal kale leeyahay ayuu fulinayaa dana Soomaaliyeed ma fulinayo waana wax magacyo kale u lahaa oo magacyo Soomaaliyeed wuxuu yahay markii loogu yeero cid uu dhabarka ku hayay iyo waxa wata iyo waxa soo dirtay waxaas waa lagu faana maanta ceeb maaha waagi ceeb bay ahayd waa lagu xirxiri jiray waagan dawladda waa lagu xirxiri jiray waxa lagu tuhmo mararka qaarkood waa la leyn jiray literally waa la leyn jiray marka waxaan rabnaa arrinta dhaqanka noocaas inaan ka guuro qarankii dib loo soo nooleeyo dad istaahila hoggaankeeda leh khibradeeda leh maamulkeeda leh ilaa waayo hoggaan waa loo baahan yahay laakiin maamul hufan oo diyaar ah oo dib u habeeya dib u hanta dalkii ayaa loo baahan yahay hoggaankeeda leh marka intaas waxaan rabay wax yar oo arara inaan ka dhigto waxaan rabaa Cabdiraxmaan background-kiisa inaan halkaan ka sheego waxaan leeyahay credentials-kiisa Cabdiraxmaan markii aan fiiriyo educationally markii hore ilaa iyo high schoolka wuxuu uga soo baxay Soomaaliya dugsiga hoose wuxuu ka soo dhigtay Cabdiraxmaan wuxuu ku dhashay magaalada Sheekh gobolka la yiraahdo Waqooyi Galbeed Soomaaliya ayuu ku dhashay dugsiga hoose wuxuu yimid Laascaanood ayuu ka dhameeyay dugsiga hoose magaalada Laascaanood gobolka Sool ayuu ku dhameeyay ka bacdi xaggaas iyo xamar ayuu yimid oo reerkii intii kala joogo iskuulka dugsiga dhexe wuxuu ka dhigtay Media Central School oran jiray ayuu ka dhameeyay dugsiga dhexe dugsigii sare waxaanu isugu nimid Banaadir baanu isugu nimid dugsiga Banaadir la yiraahdo ayaanu isugu nimid halkaas uu ka dhameeyay marka dugsiga hoose Laascaanood dugsiga dhexe Media Central oo Muqdisho ah dugsiga sarena waa Banaadir oo Muqdisho ah marka ka bacdi wuxuu yimid halkaan ayuu yimid wadankan ayuu yimid magaalada New York la yiraahdo ayuu yimid wuxuu bilaabay iskuulka jaamacadda ayuu bilaabay undergraduate wuxuu ka bilaabay Pace University oo ku taala magaalada New York City ayuu ka bilaabay halkaas ayuu ka qalin jabiyay 4 sano oo ugu horeeyay waxbarashadiisa jaamacadeed halkaas ayuu ka qalin jabiyay
iskuulkaas wuxuu waa iskuul caan ku ah xisaabinta iyo hanti dhowrka waa audit waa accounting and audit ayuu ka qalin jabiyey halkaas ayuu 4 sano oo hore ku waxeeyey markuu jaamacaddii halkaa kaga baxay wuxuu bilaabay inuu ka shaqeeyo PricewaterhouseCoopers waa kambaniyada serviceska iyo accountinga adduunka kambaniyada ugu waaweyn weeye 3 sano ayuu halkaa ka shaqaynayay markuu intuu shaqaynayana wuxuu sameeyay CPA waxaan iyo certificationka la yiraahdo CPA oo ah well sought after aad iyo aad adduunka ku shaqeeyo gaar ahaan Mareykanka iyo halkan looga shaqeeyo oo ah accountingka expert qofka ku ah ayaa hela certificationkaas oo kale marka certificationkaas ku shaqaynayay PricewaterhouseCoopers halkaas uu joogay ka bacdi wuxuu shaqo ka bilaabay 3 sano ka bacdi Citibank oo ah bangiyada adduunyada ugu waaweyn bangi kamid ah 2 sano ayuu la joogay Citibank inta ka bacdi markasta wuxuu raadinayaa wax challenge ah wuxuu u wareegay isla New York City Citibankna wuxuu ku yaalay New York City PricewaterhouseCoopersna waa New York City wuxuu kaloo shaqo ka bilaabay Solomon Brothers oo ah investment bank oo isna ku yaala New York waa Wall Street kambaniyada moogta ka shaqeeya oo faraha badan Solomon Brothers waa caan waa laga yaqaan dalka Mareykanka Cabdiraxmaan halkaas ayuu wuxuu ka shaqaynayay 2 sanadood marka isku dar 3 sano oo Pricewaterhouse ah 2 sano oo ah maxaa la yiraahaa Citibank 2 sano kale oo ah ما يصير سوري بانكية الله بس إنه كله ماشي اللي يرى سلمان برادر وسيدات سلام مركي اللي يسكت أيوه وكشقي نيويورك كدب مركو شعبان دوغا بحي عبد الرحمن كبعد وحو سوريجي دي سي مقالة دي سي أيوه سوريجي شغو وحو كبلابي وورلد بانك بنكي قاعد الدنيا ده أيوه شغا كبلابي قيبت هذا تريشريجا أيوه شغا كبلابي وحو رحل كالتشوجي شنية تمسنو أيوه كشقيني بنكي قاس waxaa isku dartaa marka 8 sano oo New York khibrad New York oo corporate America iyo World Bank oo 15 sano 23 sano oo corporate America experience khibrada oo halkaas Cabdiraxmaan uu ku halkaas uu ka helay corporate America in badan oo ka shaqeysa halkan fadhida waxa weeye shaqada halka ka socota oo dadka moogtahay sida loo shaqeeyo iyo discipline-ka iyo barashada iyo hawsha la waxaynayo iyo sida loo iyo standards-ka ay leedahay waxa weeye adduunyada beelaha ugu horeeya weeye marka 23 years oo khibrad noocaas oo kala ah waxa weeye waa outstanding khibradaas Soomaaliya waxay taraysaa Soomaaliya oo toosinaysa qaranka dumay oo meesha aan idin sheegay yaala khibrad noocaas kala ayuu u baahan yahay ka bacdi World Bank كبعد عبد الرحمن وحو قلي أو أنتو كتير World Bank rather وحو قلي graduate school إنه سويه Johns Hopkins University أو كتالا واشنطن دي سي وحو كقاتي لما ماسترز degree أيو كقاتي Johns Hopkins applied economics ماسترز degree إيه ماسترز degree كلا أو محل MS in finance لبلاس أيو عبد الرحمن كقاتي Johns Hopkins University إسقوا شغيني أنتو شغيني World Bank كشغيني كبعدي عبد الرحمن ويكجو أنت هاي أو برشيدس إنه فوقيه أو سيدركيه أيه كجو أنت هاي كبعدي وحو قلي وحو جو أنت إنه سوي PhD undergraduate Pace University أفرسنوه 2 master's degrees أو Johns Hopkins أو بعدها الدنيا تقوى وين وكفر لاوي ولي علم بالهدرية كله أو سيادة PhD ayuu go'aansaday inuu sameeyo George Mason University oo ku taala Northern Virginia again ayuu galay specialization-ka uu ku sameeyay na wuxuu ahaa monetary economics oo waa sida maamulka dhaqaalaha wadanka loo maamulo monetary economics ayuu Johns Hopkins wuxuu ku sameeyay takhasus ku sameeyay markuu intaas sameeyay wuxuu qoray thesis buu qoray thesis-ka buugga wuxuu ku sameeyay markii xaaladaha dhaqaalaha waa xusuusataan 2008 dhaqaalaha halkan waxa ka dhacay iyo bangiyada waxa ka dhacay waa xusuusataan wixii jiray iyo mortgageski iyo wixii halkan ka dhacay iyo Wall Street-ki iyo dhibaatadii iyo mashaqadii dhacday waa xusuusataan isagu markaa wuxuu
bangiyada adduunka iyo sidii wax u sameynayeen iyo wixii socday Islamic banking markii la fiiriyo iyo adduunka waxa kale oo ka socda bankinka ka socda Islamic banking iyo adduunka sidii wax u sameeyaan ayuu isbarbar dhigay markii xaaladii dhacday waagaas dib loo eego Islamic bank hadduu jiri lahaa iyo wuxuu isu kombargareeyay kaas ayuu isu kombargareeyay researchka markuu sameeyay wuxuu ka sameeyay oo tagay laba wadan waa Bahrain iyo Malaysia oo leh systemskaas iyagu system Islamic bankina leh iyo systemka kale uu yaqaanay ayuu isu kombargareeyay thesis-kiisa buugaas ayuu ka qoray waa markii Islamic bank is steady in shaky times markii xaaladaha dhaqaaluhu ay cakiran yihiin iyo bankinka iyo financial systemsku ay xoogaan mixnad ay soo foorsaarto dhibaato soo foorsaarto Islamic bank how do you compare them say so moogtahay keeba faa'iido badan keeba fiican khibradii iyo wuxuu qoray iyo buugiisina wuu jiraa inta markay ahayd Cabdiraxmaan wuxuu go'aansaday xaaladda dalka Soomaaliya ku jirto bal inuu wax ka qabto dalkii ku laabto 2012 markaa wuxuu ku jiray musharaxiintii sharaxay xilka madaxweynenimada Soomaaliya isu sharaxay 2012 ayuu ku jiray taas waa ogeyd waxa la doortay Xasan Sheekh baa la doortay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la doortay Cabdiraxmaan wuu soo noqday markaas wuxuu joogay Nairobi halkaan uu joogay markii dawladdii Soomaaliya oo hadda dawladda shaqeynaysa 2016 ayuu ka qayb galay wuxuu noqday wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda halkaa wuxuu joogay 2 sanadii bari ayuu halkaa joogay Cabdiraxmaan oo wuxuu hayay xilka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda oo isaga wasiirkii uu ka ahaa uu hogaaminayay uu dhisayay dalka Soomaaliya marka waxa ka socda laba xil buu hayay ka kala soo noqon doonaa dalka marka waxa ka socda dalka Soomaaliya waa lagu wareegsan baddeenoo dhan dacalka dacal adduunkii baa isugu tagay illegal fishing baa jira waa laga kalluumaystaa hawsha isaga gacanta loo galiyay marka waxa weeye arrintaas sidii loo sixi lahaa badda Soomaaliya laga saari lahaa wixii illegal ku sooga hawshaas ayuu Cabdiraxmaan markaas dhex galay dagaalkaas ayuu bilaabay guulooda waa ka dhaliyay waxyaabaha uu qabtayna waa idiin sheegi doonaa laakiin hawshaas oo socota ayuu xilkii isaga tagay waxyaabuhu xilka ugu tagay Cabdiraxmaanna waa la og yahay waana sheegi doonaa haddii Rabbi idmo xilka kale uu hayay wuxuu ahaa golaha wasiirada Secretariat of Council of Ministers ayuu wuxuu ahaa economic wadanka dhaqaalihiisa kubcintiisa iyo isku dubaridkiisa waayo wadan dhaqaalihiisu burburay oo dib loo soo kicinayo wuxuu u baahday hawl iyo dad inuu hogaaminteeda wadi kara khibradeedana leh in gacanta loo galiyo marka golaha wasiiradu waxay lahaayeen guddi bay lahaayeen guddiga Cabdiraxmaan baa wuxuu ahaa secretary wuxuu ahaa xoghaye oo hawsha isaga waday guddigaasu dhaqaalaha wadanka sidii loo soo kicin lahaa oo loo kabi lahaa oo horay loogu marin lahaa hawshiisu waa ahayd oo mishinku kaasu ahaa mishinka kale guddigaas loo hore wuxuu ahaa deynta Soomaaliya lagu leeyahay oo dad sidii loo heli lahaa deynkaas sidii loo cafi lahaa baa dalka loo diyaarinayay dhaqaalaha dalkana waa loo diyaarinayay adduunka World Bank iyo IMF iyo halkaan processkooda iyo waxoodana ninka waday wuxuu ahaa Cabdiraxmaan ayuu ahaa labada hawloodba taas debt relief kana meel fiican ayuu soo gaarsiiyay ilaa iyo hadda waa socotaa laakiin hawsha ninka waday oo gacanta ku hayay Cabdiraxmaan buu ahaa markaan ku laabto wax qabad ahaan dagaalkii dadka jooga badda Soomaaliya Red Sea baddaas ilaa iyo Indian Ocean koonfur halkaa laga soo bilaabo ilaa iyo koonfur 3,000 iyo 300 I think 3,300 inta xeebta Soomaalida adduunka oo dhan baa jooga illegal bay ku joogaan dagaalkaas uu galay maraakiib badan baa la qabtay adduunka communication loo bilaabay systems baa la sameeyay process baa la dhisay hawsha ninka wada Cabdiraxmaan buu ahaa guulana waa laga gaaray maraakiibtii la qabtay adoo iyagu isku wargelinayaan col baa galay marka waxay noqday in la isdiyaariyo oo license-kii iyo waxyaabihii ay haysteen iyo qootadii ninka la yiraahdo Cabdiqani baa wuxuu yiri qooto arrintaas wixii ay sameeyeen markaas hawshaas isagoo ku dhex jira
oo qaarkood la qabtay oo illegal fishing iyo reefing iyo wixii sameynayay qaarkood la qabtay oo la xanibay oo ay bixiyeen kambaniyadii maraakiibta iska lahaa lacag fara badan ay bixiyeen oo bangiga Soomaaliya u soo direen ayuu Cabdiraxmaan xilkii arrintaas oo socota ayuu xilkii isaga tagay unfortunately xilka wuxuu uga tagay Cabdiraxmaan wuxuu diiday inuu gorgortan ka galo ama negotiation uu ka galo dalkaas waxa hawshaas sida ay tahay inuu u fuliyo ayuu go'aansaday wuuna diiday inuu wax gorgortan ka galo waayo la isku dayay George ka jeenso ha arkin waxa ha sameeyeen maya musuqmaasuq ma jiro dalkan Soomaaliya iskale resource-ka Soomaaliya iskale Soomaaliya ku soo noqonaysa wax niman bahalada qaataan weenaysa waa mahadsantiin marka sheekada noocaas isagoo dhexda kaga jira oo raba inuu meeshaas nadiifiyo ayaa wixii dhacay waa ogtihiin waa qofkii raba inuu wax qabto waaqica hadda dalka ka jira waxa weeye waayo maraakiibtan dad baa u yeertay dad baa ku shaqaysta dad baa commission iska qaata waxa ay qaadanayaana waa resource qaran iska leeyahay weeye qaran baa iska resources qaranka kuma soo noqoto si fiican kuma soo noqoto qaranka waa la bilaqaystaa waa la xadaa harkin baa la leeyahay rag baa xoogaa commission oo aan micno lahayn oo maxaa la yiraahdaa dufan miyaa la oran jiray waxaas ku haysta ninka waxaas u dabcay inuu joojiyo hadda wixii ka dhacayna waa looga markii la dabcay xoogaa in la yiraahdo waxa la masaalaxeeyo hala joojiyana wuu diiday marka waxa loo baahan yahay qaranka Soomaaliya sidoo u badbaado si loo soo celiyo uncompromising dada mabda'iyan himilo aragti qab Soomaaliyeed cadaalad iyo hawlgal noocaas oo kala oo wixii Soomaaliya leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed leedahay qaranka Soomaaliyeed leeyahay Soomaaliya askari in loo soo celiyo hawshaas ku jiray hawsha uu hadda daba socdo badbaado qaranada theme-kaas waa theme-kaas ka weey marka waxa kale oo sameeyay intuu arinta ku dhex jiray waxa jiray fragmentation kalluumaysigan iyo revenue ka imaanaya sida loo qaybsadaa dawladda federaalka ilaa dawladaha dawlad goboleedyada lixda oo Soomaaliya ka jira gidigood bad ay ku xeeran yihiin gidigood bad bay wada leeyihiin kalluumaysiguna waa ka socdaa waddanka resourceska maadaama dhaqaaluhu uu soo horumarsanayn wixii xoogaa oo dhaqaalaha soo galay in la qaybsado weeye sharcigii lagu qaybsan lahaa in la helo weeye marka sharciga waxa sameeyay Dr. Cabdiraxmaan basmi waqtigii yaraayo uu joogay badii inuu nadiifiyo ayuu ku dagaalamay habkii wax lagu qaybsan lahaa habraaci wax lagu qaybsan lahaa oo dhaqaalaha lagu qaybsan lahaana wuu diyaariyay wuuna ka wada saxiixay dawlad goboleedyadii halka markay marisana hadda wixii dhacay waynu ognahay marka Cabdiraxmaan Soomaaliya ayaa u baahan khibradiisa iyo aqoontiisa iyo hoggaankiisa iyo maamulkiisa iyo musuqmaasuqdiidka iyo cadaalad darradiidka iyo dalka in dib loo soo celiyo Soomaaliya u baahan Cabdiraxmaan Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi without further ado ayaan ku soo dhaweynayaa inuu idin hor yimaado oo idin sheego halkii Cabdiraxmaan بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa waa goor dambe weeyaan waxaan jeclahay inaan aad ugu mahad celiyo dadkiina sharafta leh ee xafladda nagala soo qayb galay aad baad u mahadsantihiin inaad maaragtay nagu soo biirteen xafladdan waxa kale oo aan rabaa inaan u mahad celiyo dadkii akhyaarta lahayd ee programkan inoo daadahinayay oo ugu horeeyo Sheikh Adam عبد الغني هيرت حسين علي جامع كمال حامود يا عبد الداهر أديات بعد ما سنتين وحن روا مركو رينا عن السلام سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما دام رنتي أي جوردن بتهاي برنامج كان ودي وسوق وبيا
waxaana rabaa 2-3 su'aalood haddii waqti waaba goor dambe tahay inaan idinka fursadina siiyo marka barnaamijkeenu waa ka runtii dad waxaa tihiin aad ula socda marxaladda Soomaaliya aad iyo aad baad uga dharagsantihiin dhibta ka jirta Soomaaliya marxaladeedu waxay tahay marka waxaan rabaa inaan aragtidayda inala wadaago intii aan dawladda ku jiray iyo intii kale oo aan arrimaha Soomaaliya la socday sidii hore loo sheegay Soomaaliya waxa hortaagan ama dhibaatada hortaagan oo kaliya oo xukuumadihii jiray laga soo bilaabo dawladihii kumeel gaarka ahaa iyo labada dawladood oo joogtada ah oo xukuumadii Xasan Sheekh Maxamuud iyo Farmaajo iyo 30 sanadood ugu dambeysay sidii dagaalka sokoyaha dhacay hadda 21kii baan ku jirnaa waa 30 sanadood waxa kaliya oo Soomaaliya horumar u sameyn weyday waxa weeyaan waa hoggaan la'aan weeyaan markaan leeyahay hoggaan la'aan macnaheedu waa maxay dhibaatooyinka Soomaaliya ka jira waad ogtihiin oo aad baad uga dherigsantihiin ta ugu horeysa waxa weeyaan Soomaaliya amni kama jiro amni haduuna jirinna wax kasta amniga ku xidhan yihiin ama ha noqoto dhaqaale ama ha noqoto maxaan ku dhahaa horumarkii kala wadanka laga dhisay cadaalad la sameeyo sharciga oo laga dambeeyo marka wali waqtigan aan joogno amniga Soomaaliya ma xasiloona waxa kale oo aad ogtihiin dawladda Soomaaliya ama dawladda dunida ka jirto dhan waa 3 qaybood weeyaan ama 3 lugood bay ku taagan tahay waa qaybta fulinta oo executive-ka oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo qaybta sharci dejinta iyo qaybta kale oo garsoorka marka Soomaaliya garsoorka haddaan ka bilowno Soomaaliya garsoor kama jiro cadaaladina kama jirto qofkii lacag la baa Soomaaliya cadaalad hela musuq baana baahiyay marka 3 lugood lug kamida waa maqan tahay waa kii garsoorka maxaa soo haray laba soo haray fulintii iyo sharci dejintii marka haddii garsoorkii meesha ka baxay oo ahaa dastuurka wadanka hayay sharcigii kala dambeyntiisii hayay marka baarlamaanku culaysku u soo wareegaya ilaan dawladii waa in korjoogta lagu sameeyaa waa in wax maaragtay haddii sharciga jabiyaan ama maaragtay wax xadida haddii ay maaragtay xadgudub sameeyaan baarlamaankiina waad ogtihiin oo markaan leeyahay Soomaaliya warkeeda waad ka dharagsantihiin baarlamaankiina wuxuu noqday baarlamaan runtii aad iyo aad xukuumadii jirta ama tii Xasan Sheekh ha noqoto ama tii ha noqoto Sheekh Shariif ama tan hadda joogta waxa weeyaan dadkii markaa madax wadanka ka waxay bilaabaan in runtii ay dadkii madaxda baarlamaanka ka iyo dad kale doonayaan ay laaluush iyo lacag iyo waxay siiyaan marka xukuumadda ugu dambeysay haddaan soo eegno waxaad moodaa maalin dhaweed waad ogeedeen oo waxa la yiri 2 sanadood baan ku darsananaa waqtigoodii oo dhamaaday markaas iyadoo qayb kamida oo aqalkiisa raayna joogin baa intee xukuumaddu qaar kamida madaxdii aqalka hoose u tagtay bay waxay yiraahdeen 2 sanadood noogu dara dunidoo dhan markay ka qaylisayna waxay yiraahdeen waa ka noqonana marka waxaad u maleysaa gudoomiyaha baarlamaanka iyo baarlamaanka oo dhan dawladda federaalka ama xukuumadda fulinta ba remote control ku maaragtay ku maamusha marna waa ka noqonayaan marna waa maaragtay waa wixii loo baahnaa bay sameeyaan marka go'aamo adag oo masiiriya baa loo baahan yahay arrimaha waaweyn oo cadaaladda dhaqaalaha wax laga qabto dawlad wanaag masumaasqa la dagaalamo khayraadkeena oo la ilaaliyo dadka ama waxa la yiraahdo afka Ingiriisiga human capital oo wadan waxa uu leeyahay waa dadkiisa weeyaan dunidan wadamada la yaqaano ay kamid yihiin horumaray dhaqaalaha xagga wadamada la yiraahdo Asia bari ku yaala sida Korea South Korea wadanka la yiraahdo Singapore iyo Taiwan iyo Japan khayraad male laakiin waxa halka gaarsiiyay waxa weeyaan waa dadka ay leeyihiin cilmiga weeyaan ay sameeyaan iyo kombiyuutarada iyo waxay sameeyaan iyo waxa soo dhan marka waa dadkaas weeyaan dadka wax soo saara wadankan Mareykanka beelaha ugu waaweyn oo dhaqaalihiisu aad iyo aad ugu horumaray waxa kamid ah
meesha la yidhaaho Silicon Valley oo ay ku yaalaan shirkadaha ugu waaweyn ama ha noqoto telefoonada ama Google ha noqoto ama ha noqoto Amazon waxaasoo dhan waxa ay ku keenaan waa maskax weeyaan marka qarnigan aan ku jirno waa qarnigii la odhan jiray waa qarnigii cilmiga marka anigu intaan dawladda ku jiray waxyaalo badan oo dadku uu ka warqabo laakiin aad markaad aragtid sida ay muhiim u tahay inuu wadankani go'aan adag iyo madax maaragtay daacado oo wadankan dantiisa ka hormariya arrimaha khaaska oo maaragtay shakhsiga ah marka aan ka soo qaadno xagga garsoorka madaxweyne kasta oo Soomaaliya la doorto wuxuu ku ballan markuu campaign-ka ku jiro wuxuu yiraahdaa haddii la doorto maxkamadda dastuuriga sameeynaya haddaadan dastuur lahayn wadan waxa kala haga waa dastuurka iyo sharciga iyo kala dambeynta marka hadduuna dastuur jirin dee waxa weeyaan wadan ma tihid wixii dadka xuquuqdooda ilaalinayay awooday lahaayeen dawladda federaalka iyo dawladda dhexe waxa soo dhan waxa haga waa sharciga iyo kala dambeynta iyo dastuurka marka dastuur hadduuna jirin sababahay u sameyn waayeen madaxweynayaashii jiray madaxweyne kasta marka uu yimaado baa lagu yidhaahaa haddaad doonaysid in lagu soo doorto aad soo noqotid waxa loo baahan yahay inaadan maxkamad dastuur oo sharciga qabato oo baarlamaanka qabto oo annagana qabta looma baahna inaad samaysid haddaad doonaysid in lagu soo doorto madaxweyne kastana marka la doorto badanaaba maalinta ugu horeysa waxa ugu horeeya bilaabaan waxa weeyaan sidii loo dooran lahaa iyo qorshihii loo dooran lahaa bay ka fakaraan waxa dastuurka ku meel gaarka oo qabiil qoraalka ku qoran oo hadda muddo 8 sanadood baan dastuurka haynay 8daas sanadood oo labadii xukuumadood ugu dambeysay waxa ahayd dastuurka ku qoran inay dadka Soomaaliyeed hal qof iyo hal cod gaarsiiyaan oo marka doorasho dadka oo dhan u dareeraan labadii xukuumadood ugu dambeysay waa ku guul dareysteen sababtu waa maxay waxaan iska wada ognahay idinku dhan wada ogtihiin waxa weeyaan doorashadan dadban ama la yiraahdo 4.5 awoodan xukunka lagu qaybsado waxa weeyaan waxa aad u malaysaa ama ha noqoto maamul goboleedyada ama ha noqoto dadka dawladda federaalka oo ka madaxa waxaad u malaysaa inay sidaa ugu badiso qofkii lacag haysto oo dhaqaalihii ama kheyraadka wadanku lahaa ama deeqdii la siiyay wadanka intay urursadaan baa waxa ay rabaan ay leeyihiin haddii maaragtay xildhibaano ay soo magacaabayaan isimadu oo anigu lacag aan haysto aan xoogaa maaragtay xildhibaanada aan iibsan karo sidan bay ugu badisaa maxaan u doonayaaba inaan Soomaali weyn isku furo oo markaana tartan galo oo runtii dadka Soomaali codkooda dhiibtaan marka madaxweyne kasta badanaaba marka uu muddo yar joogo waxa ay la noqotaa in ayna doonaynin inay runtii ay hawshii loo baahnaa iyo gogol dhigeedii iyo diyaar garowgeedii inay sameeyaan marka nidaamkan hadda la yiraahdo doorasho dadban ama 4.5 Soomaaliya godka ay ku jirto maanta waa nidaamka galiyay Xasan Sheikh waqtigiisii markuu dhamaaday waad ogeedeen wuxuu yiri anigu waxa aan doonayay inaan sameeyo laakiin duruufahay saamixi waayay mar dambaan qabyadii aan waday dhameen doonaa abaan maleynaya hadalasaas uu yiri farmaajana waad ogeedeen oo meel kasta geed dheer iyo geed gaaban wuxuu u fuulay Soomaaliya oo dhan u sheegay oo dhan jiray haddii aan maaragtay aniga lay doorto Soomaaliya cod hal qof iyo cod bay u dareeraysaa marka go'aamadaas oo dhan waxay isugu soo biyashubanayaan runtii waxa weeyaan waxa loo baahan yahay haddii la rabo arrimaha waaweyn oo masiiriga in wax laga qabto waxa loo baahan yahay in qofkaas hoggaankaasi ay go'aamadii adkaa oo wadanka dhibaatooyinka ka saari lahaa inay sameeyaan laga yaabo inay siyaasad ahaan ku wanaagsaneen laakiin waxa weeyaan wadankan hadii la rabo inuu horumar gaadho waa wixii gaadhsiin lahaa weeyaan marka waa hoggaan runtii ka go'an tahay wadankan dhibaatooyinkii hor yaalay inuu ka saaro annagu sidii aan campaign-ka ilaa muddo inkastoo aanan si rasmi ah ugu dhawaaqin ilaa 2 sanadood ugu dambeysay Soomaali weynna u sheeganay iyo xusbiga iyaga anigu xusbi aan leeyahay maaha waa xusbi Soomaali oo dhan ku jirto oo reer kasta ku jira marka anigu xusbi gaara oo khaasa maaha waxaana ku jira dad wasiir ahaan jiray dad xilal badan qabtay marka xusbiga iyagu mabaadidiisu waxay ku qeexan tahay website-kii ku qoran tahay marka anagu waxaan aaminsanahay hadii eebaydmo ilaahay fursadna siiyay in loo doorto maaragtay aan xilka ku guuleysano mudnaanta iyada koowaad ma noqon doonto sidii naloo soo dooran lahaa inay noo noqoto annaka mudnaanta koowaad
waxa mudnaanta koowaad annaka naga mudan go'aamadii adka oo dastuurka oo kale sidii maxkamad dastuuriga waddanka la sameyn lahayd dadka Soomaaliyeed sidii codan lahaayeen oo hal qof iyo hal cod loo siin lahaa arrimahaas oo dhan musuqmaasuqan jiro baahi inaan wax ka qabanno arrimahaas oo dhan baan annaka naga go'an inaan wax ka qabanno sidii dadkii iga horreeyay ay nii sheegeen runtii arrimahaasi waa arrimo u baahan xirfad madaxweynayaashii iyo dad badan oo aan diyaar u ahayn shaqadan madaxweynenimadu Soomaaliya waa job interview oo kale lagu yiraahdo waxa u maleeyaan maaragtay halka ugu sareysa laga bilaabaa de qofkii khibrad iyo maxaan ku raacay aragti iyo meeshan inta aadan madaxweyne noqon ama waddan kasta ha noqoto dunida taladiisa inta aadan qaban waa inaad ka fakartay oo aad garanaysaa waxaad qaban lahayd iyo qorshahaagu wuxuu yahay marka dad aan maaragtay hawlahaas oo dhan isku taxallujin markaad timaadid waxa fududaanaysa markaad xilkii fadhiisatid oo kursigii ku fadhiisatid oo pressure badan ku soo fuulo oo mashquul noqonaysid waxyaalo badan lagu sheego arrimahaadana aan wali maskaxdaadu aan ku kala baxsanayn waxaad qaban lahayd dadka ku ag joogo kaaga dhow baa ku imaanaya ku oranaya madaxweyne hawlaha annaka naqaano waa hawlo maaragtay aan ka soo fakarnay annaka garanano soo bislayno garanana markaana waxayna ugu dhacdaa in go'aamo ama ay gaadhaan ama waxyaalo badan oo wali nabaradoodii nagu yaallo aan ka soo kabanano waxa kamida xukuumaddii haddaan ka soo bilaabo Sheekh Shariif saad ula socotaan hadda muranka ka taagan oo biyaheeni iyo baddii Soomaaliya iska lahayd iyo Kenya isku haysataan inakoo baddeeni iyo dhulkeena leh oo muran ka jirin baa dad baa intay u yimaadeen maaragtay waraaq soo qorteen ay leeyihiin bal baddii naga dhaxaysa inakiyo Soomaaliya maaragtay dawladda Kenya iyo wadamo kale oo ajnabi oo dana kale khaas kale sida waddanka Norway intay u yimaadeen baa madaxdii waddanka loo keenay markaas waxay saxeexeen intaasoo calanka saan u qaadanay weligeed lama arag dawladda Kenya ama waddan kale oo biyaheen iyo baddeen iyo kheyraadka ku jira sheeganaya marka khatartay leedahay dadka aan diyaarka ahayn oo kale marka waraaqdaas la iska saxeeyo wax fudud oo kooban oo kale ama aan macno lahayn oo kale waakeed wali waa dal socotaan dhibaatadeedii way noo socotaa haddaan ku xigo xukuumaddii isaguna Xasan Sheekh waad la socotaan oo hadda batroolka waddankeena laga helay dadka Soomaaliyeed waxa laga yaabaa inayna si wanaagsan maaragtay ayna u fahmin waxa gacanta loo galiyay oo la siiyay nin Ruusha oo nimanka liidaha oligarchs oo nimankan kheyraadkii waagii Ruushku baabay Soviet Unionku oligarchs baa liidaha waa nimanka runtii dhaqaalihii waddanka iyo kheyraadkii intay iibsadeen billionaire noqdeen marka batroolkeena iyo shirkadeena Soomaaliyeed nin Ruushaas kale oo maaragtay Soma Oil shirkadda la yiraahdo boqolkiiba 60 majority-geeda wax iska leh nin Ruushaas kale boqolkiiba 30 wax ku dhowna wax iska leh nin ahaan jiray xisbiga la yiraahdo Conservative Party-ga waddanka Ingiriiska oo la yiraahdo Michael Howard oo ninkii la oran jiray David Cameron ka horreeyay isaga baa waxa la siiyay boqolkiiba 30 baa la siiyay boqolkiiba 60 ku dhawaad waxa la siiyay nin Ruushaas kale $1 iyo 1 shilin ma siinin Soomaaliya marka sidee ku dhici kartaa qof maxaan ku dhahaa waddankan u damqanayo oo aqli oo wax kala garanaya baddayadii iyo kheyraadkii batroolka iyo wixii oo dhan baan siin karaa shirkad aan waxba siinin markii dambana qayb yar oo 2% nin la yiraahdo Xasan Cali Khayre oo markaa ninkii la oran jiray Xasan Sheekh ay saaxiib ahaayeen baa laga siiyay 2% laga siiyay marka shirkadda hadda la yiraahdo Soma Oil oo Soomaaliya batroolkeeda iska leh manaafacaadkeeda leh waa dadka ajnabiga iska leh taasina waxay ka mid tahay dadka aan runtii markayna diyaar u ahayn hawlaha ay galayaan xukuumadda hadda ka jirta waqtigeedii dhamaadayna iyaduna waad ka dharagsantihiin oo waxa la yiraahdo home integration oo dhaqaal ahaan Afrikadan maaragtay geeska Afrika oo waddanka Ethiopia Soomaaliya Suudaan Eritrea iyo Djibouti waddankan la yiraahdo European Unionka iyo waddanka Mareykanka iyo tale intay soo jeediyeen waxay yiraahdeen ma waddanka Ethiopia uga dhigno waddankii dhaqaalihiisu waa waddan weyn weeyaan waa waddan runtii wadamada kale oo shanta aan sheegay oo kale wax la yiraahdo satellite ama ku wareegaya
iyagoo ha noqdeen dhaqaale ahaan inay ku xidhan yihiin laakiin wadanka u noqonaya baroosinka wuxuu noqonayaa wadanka Ethiopia oo waxa la yiraahdo home integration oo madaxweyne Farmaajo uu saxeexay oo yiri waan ka qayb noqonanaa saad ka warqabtaan waxay labada prime ministerka Ethiopia iyo madaxweynaha Eritrea labaduba public bay u sheegeen shir jaraa'id ku sheegeen inay isku darsanno xitaa siyaasad ahaan iyo calan ahaan iyo wadan isku noqonano madaxweynaheenu baana kaliya ka hadlin oo ummadda Soomaaliyeed u sheegin wixii lagu heshiiyay oo kale marka waa muhiim weeyaan wadankan hoggaankiisa qofka haya maaragtay aad iyo aad bay muhiim u tahay arrimahaas oo dhan runtii waxa ay markaa ku tusaysaa runtii in wadankan uu dadka hadaad rabaan inay madaxweyne u tartamaan waa in su'aalo la weydiiyaa waa in journalistiyaasha weydiiyaan maxaad aaminsan tahay maxaad qabatay maxaad waxaas oo dhan tahay Soomaaliya miidiyaheena joogtay iyo warbaahinta Soomaaliya ka jirta hawsha ma galaan waxay ka shaqeeyaan maalin kasta oo ay ka hadlaan keebaa taabtay caruurta markay taabato Soomaaliya way taabtay isaga iga dambeeyay ana uga dambeeyay isaga ay taabtay waxay ka hadlaan maanta Xasan baa waxa sameeyay Sheekh Shariif kan buu sameeyay kaasuu sameeyay keebaa kee taabtay intaasi mashquul ku yihiin intay weydiin lahayn oo dhan lahaayeen haddaad wadankan doonaysaan inaad xilkiisa qabataan hawlo badan aad soo qabateen oo wali u baahan su'aalayn laga weydiiyaa jira taasina waa meesha kale ay ku sheegayso runtii meesha ay runtii ayna jirin wax runtii dadka rabayna u tartamaan wax ka weydiiya marka amniga runtii kuma dheeraanayo waxa weeyaan ciidamo wanaagsan ba hadda Soomaaliya wadanka Turkiga iyo Mareykanka u dhisay insha Allah waxaan rajeynaynaa hadii commandos la sii tareengariyo la sii wada sida Mareykanku danab iyo gaashaan ciidamo la yiraahdo tababaray wadanka Turkiga wuxuu inoo tababaray ciidamo runtii la yiraahdo haram cad iyo gorgor iyo duufaan oo iyaguna commandos fiican oo meel maaragtay wax badan qaban kara hadii la sii dhiso runtii waa fursad baa jirta wadankan amnigiisa lagu sugi karo ciidamadan AMISOM oo jooga wadankeena ay runtii ka tagi karaan markaana waa arin lagu sii dari karo arrimaha ku saabsan haddaan soo koobo runtii garsoorka waxaan u baahanahay runtii maxkamadda ka soo marka la sameeyo dastuur buu wadankani leeyahay dastuurka wadanku hadda leeyahay waa 8 sanadood buu wali aan la dhameynin oo maaragtay qabiy qoraal yahay badanaaba sanad ama sanad iyo badh baa lagu dhameeyaa marka waxaan u baahanahay runtii arintaas waxa loo dhameyn waayo waa arintan hore inoogu sheegay annaka xusbigayga waxaan naga go'an hadii ay beed mo ilaahay fursadana siiyo muddo sanad iyo badha in dastuurka hore oo jiray la dhameeyo waxa kale oo qorshaha iyagu yahay dastuurka hore aan hadda heesano inoo yaala waa dastuur ay noo keeneen wadamo ajnabiya dawladda Ethiopia ninkii waagi ka talin jiray oo prime minister ka ahaa oo la oran jiray Mala Zanaawi oo waagi waxa la oran jiray war on terror ama la dagaalanka argagixisada ku saabsan baa wuxuu noqday wadamada galbeedka isagay ka dhigteen inuu hoggaan iyo hormuud uga noqdo arrimaha Soomaaliya marka European Unionka iyo Mareykanku isagay uga dambeeyeen isaga inoo keenay nidaamkan hadda heesano oo ina qabiilada inoo qaybiyo madaxweynayaal inoo sameeyo oo maalinay maanta midnimada Soomaaliya ka liidato ma jirto wad la socotaan dagaalada ka dhex socda dawladda federaalka iyo maamul goboleedyo badan oo marka ay farageliyeen dastuurku uu cad yahay waaqixan yahay dawladda federaalku ma faragelin karto maamul goboleedyada iyo ka soo dooranaya madaxdooda iyo ka soo dooranaya baarlamaankooda shaqada dawladda federaalku inay korjoogto ka ahaato ay hubiso inay dastuurka raacaan oo sharciga hoggaansamaan iminka hadda waxaan gaarnayba in maaragtay heerka ay gaadhay dawladda federaalku ay marka ay bilowdo iyadoo ciidankii wadanku leeyahay isticmaalayso hawlaha inay gasho marka anagu arinta ku saabsan dastuurka haddaan soo gabagabeeyo warkiisa waxaan rabnaa anagu alternative ama option kale aan keenanaa oo waxaan rabnaa meeshii ka naqaan lahayd madaxweyne iyo prime minister ahaan lahayd oo baarlamaanku sidaa u shaqeeyo dawladdu in madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen la keeno oo 4 sanadood sida Mareykanka oo kale dawladdu madaxweynuhu mas'uulka iyo madaxweyne ku-xigeen leh 4 sano ka bacdina lagu la xisaabtamo waxay qaban lahaayeen nidaamka Soomaaliya dhibaatooyinka kale waaweyn oo ka jira waxa kamid ah baarlamaanka dad badan oo dana khaasa wata ama ganacsi ha noqoto ama siyaasad ha noqoto Soomaaliya siday u baabaasan tahay bay ugu badisaa marka waxay jecel yihiin inuu sideeda iska ahaatay bay doonayaan markaana waxay keenaan wax la yiraahdo motion motionku waxa weeyaan
dowladda xitaa iyadan 3 bilood jirin anigu markaan xukuumadda ku biiray annakaan 3 bilood xukuumaddeedu jirin bay mooshin keeneen dadkii baarlamaanka ku jiray dadkaasina waxay rabaan arrimo badan oo iyaga u khaasa waxa ka mid ah dad badan oo ganacsata oo waxa jira business-yaashoodan cashuur laga qaadin baa jira xildhibaanna waxaa jira marka ay dhaqaalahoodu ama pocket money-gu ka dhamaado oo dhan iyo dowladda waa gelgelinaa waa inaad maaragtay mooshin baan keenanaa marka xukuumaddan at least intay ku dhaanto xukuumadihii hore waxa weeyaan at least 3 sanadood iyo badh bay jirtay prime ministerkii joogay madaxweynuhu wada joogaan xukuumaddii kasii horeysay 3 prime minister buu madaxweynihii joogay maaragtay uu marayay arrimahaas oo dhanna waa arrimaha Soomaaliya siyaasadeeda ragaadiyay marka haddii 4 sano la doorto oo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen hawshooda ay dhameynayaan 4 sano ka bacdi ummadda Soomaaliyeed ha kula xisaabtanto hadday u arkaan inay hawshooda maaragtay ka soo bixin iyaka runtii bedelay hadday noqoto marka taasina waa arrin kale oo aad maaragtay muhiim u ah arrinta kale oo ku saabsan haddii la rabo wadankan doorasho qof iyo cod oo madax bannaan oo xalaal inuu ka dhaco waxaa loo baahan yahay wadankan dib u heshiisiin dhaba inay ka dhacdo weli wadankan sidii dagaalkii sokoyahan uga nimid dib u heshiisiin dhaba looma sameynin marka waxaa loo baahan yahay guddi heer qaran oo dad Soomaaliyeed aan siyaasadda ku jirin oo khiyaara oo dad wanaagsan oo la garanayo in guddiga loo magacaabo markaana ay bilaabaan ilaan hadda rabtid inaad hal qof hal cod samaysid waa in laga soo doortaa tuulooyinkii magaalooyinkii iyo gobolladii in laga soo doorto dadka marka sidee baa kuraasta loo qaybinayaa imisa kursi bay helaysaa deegaankaasi markaana waxaad u baahan tahay wax la yiraahdo tirakoob haddaadan sameynaa dee ma ogaan kartid kuraastii iyo waxay noqon lahayn marka hawshaasi waa hawl culus oo weyn oo laakiin haddii la rabo wadankani inuu ka gudbo waxa la yiraahdo hal qof doorashadan dadban uu ka gudbo waa in hawsha la qabtaa xukuumadihii jiro dhan aan inii sheegay oo dhan xitaa hal bari ama hal maalin mayna gelin xitaa inay hawlaha bilaabaan hawlaha kaliya ba qaadanaya 3 sanadood si ay uga qabato marka taas lafteedu wax kale ka tusaysa runtii in hawlihii wadankan hor yaallay aan waxba laga qabanin marka taas intaasaan ugu gudbayaa xoogaa yar waxaan 2 kalmadood ka odhanayaa arrimaha dhaqaalaha intaana taa ka gudbin waxaan rabaa inaan in yar ka hadlo qolooyinkan xag jirka ama al-shabaab oo wadanka haysta waxa weeyaan 2 arrimood bay xididadoodu u dheer yihiin oo u adagtay in la soo saaro oo wax looga qaban kari laayahay mid waxa weeyaan wadankan cadaalad darra ka jirta beelaha waaweyn oo meel kasta jooga Soomaaliya beelaha ka yaryar bay muqooniyaan oo cadaalad darro ku sameeyaan maalin kasta marka beelaha yaryar iyo dadka beeraleyda oo meelaha jooga cadaalad waxay u raadsadaan al-shabaab ay u raadsadaan oo leh wadankan dawladda ka jirta waa dawlad musuq aan dani naga lahayn marka cadaaladii aad maaragtay istaahisheen annaka ayna siinana nagu soo biiro wiilashiina nasiiya nagu soo biireen markaas waa ta ugu weyn oo wali ay xoog u leedahay in wax laga qabto haddii la rabo inay qolooyinka xag jirka wax laga qabto arrinta kale oo labaad oo iyaduna aad muhiimka ah waxa weeyaan waxa la yiri gaajadu diinta waa ka saartaa wadankan shaqo la'aan xoog la ka taagan oo dad aad iyo aad runtii u dhibaataysan baa jooga wadanka jooga marka dadkaas oo dhan runtii haddaadan shaqaysan oo reerkaagii iyo waa inaad maaragtay qutliyoomkoodii u soo saartaa marka maadaama ay shaqo ka jirin wadankii qoliyahaas lacagtay maaragtay ka boobaan oo baad uga qaadaan dadka bay yiraahdaan $100 baan kuu siinayaa maaragtay caruurtiin iyo family-gana lagu masruufo wiilkiina nasiiya ama caruurtiina dhalinyarada nasiiya hanugu soo biireen labada arrimood weeyaan oo aan wali wax laga qaban la adres gareen haday dawladdu dhaqaalaha dhisto isla markaana wadankan cadaalad daba ka sameeyso markaas waxa wiiqmaya awoodii lahaayeen markaana ciidankii waxa kale uu qaban lahaa hawshiisa waa fududaanaysa taana intaasaan ka odhanayaa marka arrimaha dhaqaalaha ku saabsan iyadoo tafaqtiran waxay ku jirtaa website-ka iyaga laakiin 2-3 wuxuu baan ka odhanayaa 3 ilood oo dhaqaalo waaweyn buu wadanku leeyahay oo haddii lahayd shaqo badan oo abuuri kara dhaqaalo badan laga heli karo Soomaaliyadana saboolnimada xoogeeda ka saari karta 3 ilo dhaqaalo ilaahay ku manaysay wadanka Soomaaliyeed mid waa kalluumaysiga sidii hore loo sheegay badda ugu dheer baan leenahay Soomaaliya oo 3,300 mayl ah iyo marka la eegana aaga dhaqaalaha ma afka Ingiriisiga lagu yiraahdo special economic zone oo 1,200,000 kilomitir oo isku wareega waa aaga dawladda dhaqaalaha leedahay oo maaragtay wasaaraddan anigu ka ahaa maaragtay wasiirka ka ahaa ay mas'uul ku yahay shatigeeda inay bixiso
waxyaalahan ogaaday intaan dowladda ku jiray waxa weeyaan maaragtay kalluunka ku jira iyo qanigu iyo dunida wax haysataa ma jiro ilaa laga bilaabo maxaan ku dhahaa hirarka meelaha ugu badan oo kalluumada xoogooda yimaadaan nafaqadiisu waxay ka soo bilataa wax la yidhaaho hirar waaweyn oo Australia ka soo bilaabo oo ka soo baxa Indian Ocean-ka dhinaca leenahay markaana nafaqo badan bay keenaan waa meesha ugu kalluun qani badan oo nooc kasta leh maaragtay dunida oo dhan marka annagu intaan wasiirka ahaa qorshaan keenay oo aan maaragtay u soo bandhignay dowladda aan doonaynay muddo 5 sanadooda haddii maalgashi lagu sameeyo oo qaboojiyaal xeebaha laga sameeyo warshado laga sameeyo meelaha lagu diyaariyo kalluunka lagu hagaajiyo dooniyo la siiyo dadka maaragtay qalabkii lagu kalluumaysan lahaa waxaasoo dhan haddii la sameyn lahaa runtii ilaa lacag 2 bilyan milyan maaha 2 bilyan oo dollar bay gaadhaysaa miisaaniyadda dowladdu waa 500 milyan hadda anigu markaan bilaabnay 300 iyo waxbay ahayd hadda waxa ay ugu maqalaa 500 iyo jarjar ama 600 bay ku dhowdahay oo milyan oo dollar marka badda oo kaliya waxaan idhi 2 bilyan oo dollar ka imaanaysa taasi waa mid waa ilaahan ku leeyahay dhaqaalaha wadankan maaragtay wax soo saar ka soo saaraya oo shaqadana abuuraya dad badanna runtii noloshooda bedeli lahaa waxa kaloo aan leenahay ilaahay nagu manaysay waa xoolaha aan leenahay xoolo dhaqantaana wadankeenu 500 milyan oo neef oo xoolaha bay markay ugu badnay waayay ugu dhaweed u dhoofiyeen wadanka Sacuudiga iyo wadanka Imaaraadka iyagoo sidoodii baan dirnaa oo u dirnaa runtii wadamada laakiin qorshahan anagu soo wadno oo barnaamijkayga ku qoran oo website-kayga ku qoran haddii kawaano waaweyn oo casriya laga sameeyo Soomaaliya xoolaha lagu qalo oo gobol kasta xoolo badan leeyahay markaana hilibkaas haddii lagu rido package oo kale supermarketyada dunida loo diyaariyo waxa la geen karaa waa waxa la yiraahdo organic food waa cuntada dadka oo dhan doonaya waayo waa dhir wanaagsan iyo daaqaan marka waa aad baa loo qiimeeyo lacag badan baa lagu siinay hilibka organic food baa la yiraahdaa oo dunida laga yaqaano anigu wasiirka intaan ahaa wadanka Turkiga iyo maraan tagnay wadamo badan oo bariga dhexe oo ka mid tahay Iraq iyo ay ka mid tahay aad iyo aad baan u doonaynaa bay yiraahdeen haddii xoolihii oo la qalo maaragtay sidii hilibkii oo la geeyo supermarketada halkaana ilaa 3 bilyan milyan maaha 3 bilyan oo dollar oo markaa kulay diyaaradan cargo hilibkan diyaarada cargo baa qaadayo markiiba supermarketada dunida oo dhan geenaya marka haddana waxay naga soo garaa xoolaha haday ugu badato 500 milyan baa naga soo gala waayo neefku sidiisa dheemna xoolahan laftooda haddii la qalo waxaa jira wax badan oo ka mid tahay hilibkaas oo noocyaal badan oo by products baa la yidhaha ay ka mid yihiin oo laga sameyn karo fertilizers caanaha la dhiibi haragii baa imaanaya waxaasoo dhan warshado kale iyo oo light industry la yidhaha ka imaanaya waxaasoo dhan waa wuxuu ilaahay ku manaystay Soomaaliya marka ta ugu dambeysana waad garanaysaana waa beeraha weeyaan wadankeena ilaahay mahadii wuxuu ku manaystay labada wabi oo Jubba iyo Shabeelle labadoodana haddii la eego waxa uu awoodi karo ama laga soo saari karo 6% waa haday ugu barato 6% ma gaadho maaragtay waxa laga beero Soomaaliya iyo la dhoofiyo 6% baa ugu badan 94 wali dhulkaas waa dhul dihin oo wabiyadiisii yaalaan aan waxba laga qabanin markaana dhulka haddii laga sameeyo runtii warshadaha la yidhaaho agri processing maaragtay oo markaad maaragtay soo goosid maaragtay beeraha ka soo goosid waxa loo baahan yahay inaad daqiiq iyo bariis iyo saliid iyo ka samaysid marka warshadihii ka sameynayay baa marka loo baahan yahay wadanka laga abuuro Soomaaliya hadda saad ula socotaan 98% waxa laga cuno dhan dabadda laga keenaa marka lacagta adag aan leenahay dhan waxay aadaa waxa import ka ama banaanka laga keenayo haddii aan warshadaheena waxa bilaawno khayraadkaas oo dhan waxaan u jeedaa lacagtaas oo dhan way noo baaqanaysaa xitaa dunida aan ka iibinayna wax kale marka taasina waa mid taa ku saabsan waxa kale oo loo baahan yahay kaabayaashii dhaqaalaha oo ay ka mid yihiin dariiqyadii dekadihii waxaas oo dhan in loo sameeyaa loo baahan yahay taasina waxay qayb ka tahay waxa kale oo iyaduna hadda dunida oo dhan saad ula socotaan waxa la yiraahdo technology-ga iyo digital-ka iyo innovation-ka taa weeyaan ta la isku dhaafaa dunida wadankeenu inkastoo uu meel hoose joogo oo yahay haddana waxa weeyaan nasiib wanaag ilaa mahadi waxa aan sameeynaa meeshii inaan waxa la yiraahdo afka Ingiriisiga leapfrog waxaan u boodi karnaa teknolojiyadii ugu dambeeyay oo casriga ahayd baan u wareegi karnaa oo marka inagoo isticmaalana wax badan oo automation laga dhigi karo waxa kamid ah waxa la yiraahdo e-commerce oo
Amazon iyo Alibaba iyo la yaqaano dadka Soomaaliyeed waa dad Ilaahay ku siiyay haybad oo ganacsiga ku wanaagsan ilaa South Africa ilaa Afrikada dhexe ilaa Afrikada bari galbeed oo West Africa waxa soo dhan ganacsatada Soomaaliyeed baa jooga marka ganacsiga ay ku jiraan iyo xoolaha dhaqaalaha ay sameeyaan haddii technology-gaas oo kale sida e-commerce kale loogu daro wax weyn buu sameeynaya dawladdan oo musuqmaasuqeedu badan yahay haddii laga dhigo electronic oo casri laga dhigo e-government baa la yidhaahaa taa lafteeduna waxay aad u baabi'inaysaa lacagtan musuq iyo ku baxdo dhan bureaucratskii hawshooda ku qaban waaya haddaad shati u baahneed inaad businesskaaga ku furtid oo maalin lagugu siin waayo markiiba email baa kusoo dhacaysa oo odhanaysa xafiiska qofkaan u tegay ma siinin marka waxay sameynaysaa dawladdii inay accountable noqoto maaragtay wax laga qabto iyo waxa la yidhaha e-procurement oo ah musuqa ugu weyn Soomaaliya meesha uu ka jiraa waxa weeyaan qandaraasyada la bixiyo oo dawladdu bixiso oo cid kala xisaabtanta ayna jirin arrimahaas oo dhan technology wax badan buu ka qaban karaa waxyaalaha kale oo runtii Soomaaliya musuqa ka jira waxa kamid ah ra'iisul wasaare kasta iyo madaxweynayaasha badankoodaba wax la yiraahdo cashuur dhaaf baa jirta dadka ganacsatada aan inii sheegay waraaqaha loo qoraa la leeyahay ganacsatadaas oo dhan hebel iyo shirkad taas oo kala cashuuryan laga qaadin marka anaku waxaan soo jeedinaynaa in la sameeyo hay'ad madax bannaan oo cashuurta ururisa oo dawladda ka madax bannaan sida wadankan Mareykanka la yiraahdo IRS oo kale wadanka la yiraahdo Kenya waxa la yiraahdo Kenya Revenue Authority Rwanda Revenue Authority hay'adaas mid madax bannaan bay noqonaysaa arrimahaas oo dhan qabanaysa markaasna aad iyo aad runtii dakhligii wadanka soo galiyay iyo cashuurihii la ururinayay iyo waxa soo dhan arinta kale aan yar ka taabanaya waxa weeyaan waa bangiga dhexe ee Soomaaliya bangi dhexe ma leeyihiin waxaan leenahay cashier baan leenahay cashier waxa weeyaan qof uu lacagta loo dhiibo la yiraahdo waxaanay maaragtay ugu rid meesha bangiga dhexe wixii loogu talagalay inuu sameeyaa wadankan saad loo socotaan dhaqaalaha Soomaaliya waxa weeyaan dollar weeyaan buu ku shaqeeyaa waa dollar economy boqolkiiba 12% baa ah lacagtii hore Soomaalida ahayd oo hadda iyaduba gabigeeduba qiimo beeshay boqolkiiba 12 dad maaragtay la eego weeyaan lacagta shilin Soomaaliga ka shaqeeya inta kale oo dhan xoogeedu waa dollarku hal cudur buu leeyahay oo wadan dhaqaalihiisa uu leeyahay dollarku waxa weeyaan waxa ugu yar oo maaragtay sarifka ugu yar waa $1 waxa weeyaan Soomaaliya dadka jooga oo dadka masaakiinta oo aad iyo aad maaragtay u tabardaran dadkaasi dollar waa ku badan yahay waxa loo baahan yahay dollarka wax badan oo sarif oo qotliyoomkooda ay ku iibsan karaan oo badan marka dadka idinkoo kale ay ilaamaad iyo dadka lacagta loo diro Soomaaliya dollar oo kale $1 macnaheedu ma fadhiyo laakiin Soomaaliya anigu intaan joogay oo wadanka goboladaan arkay oo indhahayga ku soo arkay oo naxdin iyo maaragtay calool xumadeeda leh waxa weeyaan boqolkiiba 40 ilaa 50 dadka Soomaaliya waa dad faqiiriin oo masaakiina dadkaas oo dhan waxay u baabaasan yihiin cidina kan warqabto waa dollarka lagu shaqeynaya wadanka marka anaku hadii eebeedmo waana arimahan anagu ku takhasusay oo PhD-deeda ku qaatay hadii eebeedmo waana anaku fursad helo waxaan aaminsanahay in shilin cusub oo shilin Soomaaliga dib loo daabaco markaana dadka Soomaaliyeed khaasatan dadka danyarta ah in ay runtii ay maaragtay noloshooda ay u fududeen doonto arinta kale oo la xiriira bangiga dhexe ee Soomaaliya waxa kamid ah saad u warqabtaan xayiraad baa saaran bangiga Soomaaliya bangiyada Soomaaliya khaasatan bangiga dhexe ee wadankeena leenahay xayiraadda saaran waxa weeyaan oo wadankan Mareykanka saaray wasaaraddiisa la yiraahdo Treasury Department-ka ama maaragtay wasaaradda maaliyadda ee wadanka Mareykanka xayiraadda Soomaaliya saaranna waxa ay tahay maadaama nimanka xaq jirka ee wadankeena joogaan oo xawaaladaheena aad u isticmaalaan iyaku marka xawaaladaheena hawlahooda u isticmaalayaan iyo waxyaalaha wadanka dibta ay ku hayeen Soomaaliya marka waxa la yiri sidaan ku ogaanana xawaaladahan lacagta lagu dirayo la isticmaalayo in dadkii xaq u lahaa oo u baahnaa oo sida sax ah u isticmaalaa iyo kuwii kale ma kala saari karno maadaama ana kala saari kareenin mar rabno anaku inaan maaragtay chance ka qaadano sida darteed laba sharci oo la yiraahdo money laundering anti-money laundering iyo terrorism financing labada arrimood darteed baa inoo saaran xayiraad waa wuxuu bangigeenu u yahay sidaan lahaa waa cashier oo kale u yahay marka lacagtii iyo dhaqaalihii maxaan ku ilaahaa deeq bixiyaashu inay siiyaan wixii wadankeena soo gala waxaas oo dhan bangi yar oo ku yaala wadanka Turkiga oo bangi yar Istanbul ku yaala bangiga yar baa wadanka dhan oo madax bannaan oo qaranka ah bangiga yar baa inoo kafaalo qaada inagoo qaran dhan oo wadan dhan oo dhisan
oo isaga lacagtina loogu soo shubaa sidii xawilaad oo kale marka halkaas Swift code iyo meelaha dunida u soo diraan halkaas lagu soo diraa Istanbul waxa looga soo qaanaa maaragtay jawaana looga soo qaadaa lacagto sideedii jawaana lagu siido waa diyaarad inta la soo saaray Djibouti la soo mariya marka dambena khasnad weyn iyo meel vault weyn ay leedahay bangiga dhaxal lagu shubaa Soomaaliya lacagteeda iyo siday u shaqeysaa ka weeyaan marka arinta xalkeedii muxuu noqonayaa arintaas aan uga bixi lahayn hal shuruud oo kaliya lagu xidhay oo arintaas oo wax ka qaban lahayd xukuumadii ka horeysay waa ogeed tanna waa ogeed waxbana kama qaban waa maxay waxa la yiri National Biometric ID waa inaad leedihiin aad sameysaan National Biometric ID muxuu keenayaa wuxuu ku sheegayaa qofkii xawaalada dirsan iyo lacagta ka isticmaalayay qofku yahay bay ku cadeynaysaa markaana waad kala saari kartaa qofkii legitimate ka iyo qofkii kale marka qoliyaha xaq jirku ma doonayaan farsuulkoodii in la qaadiyo waxa soo dhan marka culayska ay saaraan inii sheegay bay kamid tahay madaxda wadanka lagu yiraaho hadii aad maaragtay hawlaha isku faragelisid annakuna maaragtay dib kalaan ku keenana oo markaana dib looga gurto marka taasina waa arinta ku saabsan arinta National Biometric ID ga intaan ku jira laba qodob oo kale muhiim ah rabaa inaan iniga sheego mid waxa weeyaan saad uga warqabtaan waxa loo baahan yahay hal qof hal cod inuu dhacdo National Biometric ID baa loo baahan yahay codkaaga soo bixisid midda kale oo muhiimka ah waxa weeyaan National Biometric ID wuxuu inoo suuro galaya inoo suurtoobi karaysa in wadankeena maalin kasta sida dad ku qiyaaseen number sax ma hayno waxa la yiraahaa nimba maalin ii sheego number runtii macquul ii sheego wuxuu yiri 300 waa soo gashaa 300 ama 30 waa dhoofaan iyo ma qartiroogi marka maalin kasta 300 oo oroma ah wadankeena soo gasha ilaa laga bilaabo burburku intuu dhacay hadda qofkii tagay Soomaaliya oo tagay Puntland iyo Somaliland hadda tagtid meel kasto oo dhan xaafado dhan oo aad arkaysaa xidhan oo oroma degantahay baad arkaysaa hadda intay degeen bay af Soomaaliga intay barteen Soomaali guursadeen waa dhooba wadanka iyaga inaga qaadayo inaga la wareegayba wadanka marka National Biometric ID haddaan sameeyno arimahan sheegayo dhan buu xal u noqonaya laakiin laga bilaabo maalinta aad sameeysid wixii aan Soomaali ahayn oo maaragtay dadka Soomaali marka la diiwaan galiyo kii ajnabi waad garanaysaa markaana fursad ay marka wadankeena maaragtay ku control xuduudaheena iyo wadankeena maamulkiisa iyo controlkiisa hayno bayna siinaysaa arinta kale oo la xiriirta National Biometric ID oo muhiim ah waxa weeyaan dadkii dan yartaheedaan inii sheegayaan lahaa waa dadka 30% oo aad iyo u tabaalaysan dawladdu waxyaalo badan ay qaban kartaa jirto oo waxa kamid ah in ay maaragtay qofkii maaragtay hadda waxa la yiraahdo mobile banking ka Soomaaliya aad buu hadda maaragtay dadku dhan ka isticmaalaan marka hadii la calaamadeeyo la ogaado dadka masaakiinta oo dan yarta waxa yihiin dawladdu waxa u diri kartaa $300 bay qoyska qofkii mas'uulka ah ama sida hooyada ama qofkii kale waalid oo jooga marka waxa ay meesha ka saaraysaa xafiisyo waaweyn iyo wasaarado waaweyn sida wadankan Mareykanka HHS baa la yiraahdaa Human Services maaragtay la yiraahdo maaragtay tan u qaabilsan bixiya welfare-kii waxa soo dhan oo lacagta ku baxdaa ciidda ka badan technology-ga casriga wuxuu keenayaa in aadan kharashkaas oo dhan iyo dad badan oo bureaucrats aadan qaadanin hooyadii ama qofkii waalidka ahaa baad ugu diraysaa mobile phone-kooda bisha 28 marka la gaaro 300 way helayaan laakiin maxay hooyaduna sameynaysaa hooyaduna muhiima taanina lahaay oo kala waxa wadankan u baahan dadkii wax u baranaya maskax baa dunida la isku dhaaf marka hadda Soomaaliya dadka iskuulada dhigta primary schoolka waxa World Bank numberadii ugu dambeeyay soo saareen waxay yiraahdeen 4 milyan oo dhalinyaro oo dugsiga hoose primary schoolka la yiraahdo baa diyaar u ah inay galaan imsaad u maleynaysan inta iskuul ka dhigata Soomaaliya oo dugsi hoose ka dhigata 1 milyan oo qura ka dhigta 3 milyan oo caruur oo maskaxdoodii dunida oo dhan bedeli lahayd waxay ku qaayistaa cid wax siisaa ma jirto cid wax bartaana ma jirto dadka iskuulada dhigta badankoodana waa dadka qurbaha jooga lacagta u soo diraan ay wax ugu baraan marka wadankani waa xaweeyaan dunidan oo hoose oo waxa jira dadka Soomaaliyeed ayna ka warqabeen baa jira marka laba shuruudood baa lagu xidhaa qofka waalidka si dawladdu lacagta ugu soo dirto mid waxa weeyaan oo electronic ah oo isticmaalaya cilmigan digitalka oo maaragtay casriga oo ka dhigo fududeeyay wax kasta
mid waxa weeyaan grade-ka oo ilmuhu leeyahay oo iskuulkooda oo electroniga baa loo soo diraya dawladda markaana waxa la eegayaa markska caruurta la eegaya haddii ay ku guuleysteen oo maaragtay buundooyin fiican keenay wax baaseen macnaha waa dee waxa weeyaan qofkaasi waxbuu baranayaa waalidkii guriga joogayna maalin kasta wuu ka shaqeynaya waxaad ogtahay inay ogyihiin ama sidii maaragtay u hubin lahayn homework-goodii inay ka shaqeeyaan marka haddii grade-ka la arko oo wanaagsan yahay waa mid talabaadna waxa weeyaan weli ma lihin laakiin clinics caafimaad oo kale oo caruurta medical check-up loo geeyo labadaas shuruudood haddaad fulisid bil kasta bisha 28keeda dawladdu waa ku soo diraysaa dad badan oo inaga lumay oo runtii wax noo baran lahaana waa soo bixi lahaayeen taasi waa taa arrinta kale oo iyaduna wax weyn dhaqaaleena hadda waqti uma haysanaan ka hadallo waxa kamid ah dalxiiska iyo dhaqaalahan kale oo maaragtay la yiraahdo blue economy dhaqaalahani waa badaha maaragtay dalxiiska iyo hudheelada waaweyn oo ku yaala taa lafteedu waa meelaha dunida oo dhan shaqo abuurka badan oo xoog leh ka jiro xeebta ugu dheer baan leenahay waxaan leenahay togag baan leenahay ay badan oo waxaan leenahay ku taala dhinaca jubbooyinka haddii xoolihii iyo gaadhi dib loogu beero dalxiiska ugu weyn iyo lacagta ugu badan baa ka soo bixi karta waxyaalaha badan oo laga qaban karo ee Soomaaliya ka mid tahay arinta ku saabsan dawlad wanaag iyo musuqmaasuqa hadaan korbaro dhaqsi dhaqsa waxa loo baahan yahay dhowr hay'adood oo dawladda ka mid ah oo musuqa ugu weyn oo ka jiro in laga dhex saaro xafiiska ra'iisul wasaaraha ay noqdaan xafiisyo ka madax bannaan sida waddanka Mareykanka iyo wadamo badan xisaabiyaha guud qofka la yiraahdo amaarti xafiiska weyn oo muhiimka ah oo xisaabiyaha guud la yiraahdo hanti dhowrka waddanka xafiiska iibinta ama procurement office la yiraahdo hay'adiyada lahaa lacagta ururinaysa oo Somali Revenue Authority baan anagu magacan u bixinay sida wadamada kale oo Afrika oo kale ka jira waxa soo dhan waxa loo baahan yahay inay ka madax bannaanadaan oo dadka loo magacaabaya dad la soo tartan ku soo galay hufan xirfad leh iyo markaana lagula xisaabtami karo miisaaniyadooduna ka baxsantay dawladda oo prime ministerka iyo madaxweynuhu una pressure saari karin oo mishaarada sida gudoomiyaha baarlamaanka korontada iyo biyaha laga goosto oo kala ina waxa soo kale lagu sameeynin oo kala marka arimahaas oo dhan waa arimo muhiim oo aan anagu aaminsanahay waxyaalaha musuqmaasuqa aad wax uga qabanaya Soomaaliya inay tahay waan inii kormaray caafimaadkii waxbarashadii iyo siday muhiim u tahay in meeshan gaari lahayn taa waa ka gudbaya inta ugu dambeysana waxaan ka hadlayaa xogaa laba kalmadood waa khayraadka waddanka uu leeyahay khayraadka waddanka uu leeyahay waa laba nooc weeyaan khayraad waa ka badda ku jira iyo wixii kale oo badda ku jira oo anigu wasaaraddan joogaya kaasi waa khayraadka maaragtay qaybtaasi waa taa qaybta labaadna waa batroolka iyo macdanta ku jirta waddanka marka labada wasaaradood ama labada qaybood batroolka iyo macdanta iyo kalluumaysiga wixii ku jira khayraadka waddanka uu leeyahay waa labada weeyaan marka saan hore inigu sheegay oo inigu taabtay waad ogeedeen sida musuqa ka dhacay iyo sida loo bixiyay iyo maaragtay arimahaas maaragtay kuma dheeraanayo laakiin hal qodob oo aan iniga sheegay oo aan laga yaabo inaydan ka warqabin shirkadda aan lahaa Soma Oil oo Xasan Sheekh waqtigiisii bixiyay shirkaddii ay maaragtay iyagu qorteen oo u baadhay badda eegayo cilmigan marka maaragtay badda maro oo seismic technology intuu ku baadhay eegayo inuu batrool ku jiro markabkaasi wuxuu ka bilaabay Ras Kamboni ilaa meesha la yiraahdo Hobyo buu gaadhay markaana waxa lagu calaamadiyay 206 blogi waxa laga yaabaa 10,000 mile oo square inuu yahay marka min Ras Kamboni ilaa meesha la yiraahdo maaragtay Hobyo 206 blog baa laga soo saaray kharashkii ku kacday oo inta lagu sameeyay waxa 64 milyan buu 64 milyan dollars buu marka shirkaddii waxay yiraahdeen dawladdiinu lacag ma haysataan lacag la'aan baa inay haysaa marka uma baahnin inaad lacagna siisaan waxaad magdhow nooga dhigtaan aad noo siisaan bay yiraahdeen 206 blog oo aan nidhi batrool badan baa ku jiro buuxa magdhow waxaad noo siisaan 12 blog oo anaku kuwan xulana 12 blog oo 206 blog 12 aan anaku xulanay magdhow noo siiya 64 million dollars kan ku sameeynay waxba hana siinina marka dadka sidaa oranaya waa dadkii iyo ku macluumaadkii sirtii hayay oo dheeraha sameeyay weeyaan kuwa sidaa kugu leh xukuumaddii Xasan Sheekh wuxuu u saxeexay inuu 12 blog magdhow u siiyo 12 blog marka la eego lacagteedu waxay gaaraysaa trillion waa 1 bilyan weeyaan trillionku
marka 12 ay ogyiin meeshii saliidu ka buuxday haddii uu magdhow u siiyo uu saxeey madaxweynihii wadanku oo prime ministerkiisana uu saxeexay wadankan Soomaaliya wuxuu ilaahay ku caamiyay oo ilaaha mahadiisa markastoo khidad loo dhigaba ilaaha baa ka saara dabin kastoo loo dhigo hay'ad la yiraahdo ma raba inaan inagu dheeraado technical oo ilaa FGC Financial Governance Committee waxay ka kooban tahay wadamadan deeq bixiyaasha European Unionka maxaan ku yiraahdaa bangiga dunida IMF-ta bangiga African Development Bank wasiirka maaliyadda oo Soomaaliya chair gareeya iyo gudoomiyaha bangiga dhexe iyo anigu markaan golaha wasiirada ku jiro guddiga dhaqaalaha madaxa u ahaa aniguna xubin baan ka ahaa marka ururkaas waxa loo sameeyay waxa la ogaa Soomaaliya inay tahay wadan musuq aad u baahiyay oo aan hal shilin lagu aamini kareynin marka waxa la sameeyay xukuumadda Xasan Sheekh waqtigeedii baa la sameeyay marka ururkaas ujeedadiisu waa maxay waxay eegaan kontraktyaasha waaweyn oo wadanka ay dawladdu saxiixdo ama heshiisyada ay gasho bay eegaan ay oranayaan waxani wax macquul ma yihiin marka guddigaasi power male wuxuu tala soo jeedin bay leeyihiin awood male ay dawladda amar ku siiyaan laakiin annagu talaan bixinayna bay yiraahdeen maadaama ay tala bixinayaan ku jiraan World Bank iyo IMF iyo ku jiraan European Unionki de madaxda Soomaaliya joogta iyo kun bay eegaan deeq bixiyaashaasi wixii ka cadhaysiiya way ka fogaadaan marka haddii ay yiraahdaan tala waxay noola agtay waxay yiraahdeen 12 block oo madaxweynihii iyo dawladdiinii aad u saxeedeen waxa la dhacayaa bay yiraahdeen Soomaaliya dhaqaalaheedii iyo dadkeedii baa la boobaya kheyraadkeedii baa la dhacayaa bay yiraahdeen iyaka dartood ay diideen baan ku badbaadnay oo xukuumadda Xasan Sheekh waqtigiisa ku dhamaatay iyada oo maaragtay FGC daasi diiday marka taana taas ku badbaadnay xukuumadda hadda jirto anigu qayb ka waageedii horena iyadu markay timi oo ra'iisul wasaarihii 2% ku lahaa ninkii waagi ku lahaa Xasan Cali Khayre oo hadda ra'iisul wasaarihii wadanka yahay oo isagu ra'iisul wasaare ka ah isaguna wuxuu approve gareeyay in meeshii laga siimiso oo 12 blog oo loo diido kuwii hore waqtigoodii dhamaaday inuu yiraahdo iyakana ha loo sii wado marka arintiina wali qolooyinkii FGC dan ii sheegay baa hortaagan orda Soomaaliya marka aan ka hadalnaan leenahay wadankani muxuu u kici waayay oo meel u gaari waayay oo dibta uu ku jiro uga bixi waayay waa taacad way waa arrimahaas weeyaan waa ku dheeraaday arinta ugu dambeysaan waxaan leeyahay marba waxaan leeyahay tii ugu dambeysay laakiin markan waa tii ugu dambeysay weeyaan ugu dambeysay waxa weeyaan waad ka warqabtaan wadankeena cimiladan isbedbedelaysa abaaro badan oo soo noqnoqdo daba jooga yimaada waxa yimaada daadad badan baa yimaada wabiyadan fatahabaad aragteen marka cimiladan isbedelaysa saameyn weyn bay u leedahay afartii sanadood ba dadka xoolo dhaqatada abaar weyn baa ku dhacdo dhibaato weyn baa ku dhacda arrimahaas oo dhan waxa loo baahan yahay qorshe cusub oo dawladdu la timaado oo wax looga qaban lahaa arrimaha cimilada waxyaalahan ka wada shaqeyn karno wadamada aan dariska nahay oo waa laga yaabaa waxyaalo kale inay daneen ku kala duwan yihiin laakiin inakoo dhan waxayna midayso oo meel isugu keenta hal doon baan wada saaran lahaa isku region baan ku lahanaa dhibaatooyinka iyo abaarahaas maaragtay ka imaanaya arrimaha cimilada waa arrimo inakoo dhan ina saameysa marka anagu waxaan soo jeedinay in research center weyn oo ay wada leedahay East Africa iyo Horn of Africa ay wada leeyihiin lacagtii dhaqaalahan inta la sugeeyo markaana si aan runtii wax uga qabanno waa waxyaalahan anagu soo jeedinay arinta kale oo Soomaaliya ka jirta ka warqabtaan waxa weeyaan aad iyo aad buu runtii deegaanku runtii nabad guur weyn baa ku dhacay iyo aad iyo dhirtii Soomaaliya oo dhan xoogoodii waa la xaalufiyo dhuxul iyo waxa loo xaalufiyay arrimahaas oo dhan waa arrimaha anaka qorshe noogu jira iyo qaxootiga iyo barakacayaasha wadanka ka jirana iyakana waxa aan runtii anaka qorshahayagu yahay in kheyraadkan inishigo ahaa maaragtay beerihii kalluumaysigii iyo maxaan ku dhahaa xoolihii inaan kuwaas oo dhan aan dawladdu ay maal geliso sidii dib loogu soo celin lahaa halkaas aan ku joogsanayaa waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقة وحلا إلها إيمان دار حاج علي waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo baarlamaanka Soomaaliya waxa la soo dhigay xeerka qoyska oo 18 ah baarlamaankii way soo hortaagay marka waxay yiraahdeen shariicada islaamka ma waafaqsana oo waxay yiraahdeen 15 waa inay noqotaa sidoo ognahayna Saudi Arabia waxa weeye waxa ku qoran oo kacbadii ka dhisan tahay waxa ku qoran 18 waxaan halka ka dareemaynaa in caruurta yaryar in la guursado la doonayo oo la xalaalaysto
oo aan ku tuhmaynay badafiiliyada waddanka ka dhisan yahay maxaa arrintaa ka qabtaa su-aasha labaadna waxa weeye Somaliland iyo waqooyi maxaa idinka tirsan speechka aan kuma soo darin salaamu calaykum ما سنتهاي runtii arrinta ku saabsan sidaan anigu hadda u fahmay baarlamaanku waa diiday arrinta ku saabsan arrinta xeerka qoyska marka runtii anigu taasaan taageersanahay taasi taa weeyaan haddaan soo koobo arrinta Somaliland waxaan anagu aaminsanahay Soomaaliya sida ay tahay oo Somali Republic inta uu yahay siday tahay waa wadan yar weeyaan haddaan rabno Soomaaliya inaan dunida la tartanno oo dhaqaale ahaan dhisno oo rabno inaan noqono wadan runtii noqon kara dadka Soomaaliyeedna maaragtay khayraadkiisa iyo wuxuu ku jira iyo inay maaragtay noloshooda standard of living kooda kor loo qaado haddii sida cantonska Switzerland oo kale haddaan markaa kala qaybino marka ma wabiyadii waaweynaa oo Soomaaliya ku yaallay iyo badii weynada Soomaaliya ka go'aasa ma Soomaaliya hal qoysa oo maaragtay isku reer oo isku dhaqan oo dhan baa kala go'aasa maaragtay xitaa aqliga haddaad dhinaca ka eegtid annagu markaa horta guud ahaan waxaan aaminsanahay midnimada Soomaaliya annagu aaminsanahay xisbi ahaan kasokow taa haddii waxa kale qodob kale aan raacinaya waxa weeyaan Soomaaliya waxyaalaha ugu waaweyn oo muhiim tahay inay wax ka qabtaan dawladda waddanka ka jirta hadii la rabo waddankan horumar sameeyo waxa weeyaan arrimaha ku saabsan wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland ay wada galaan waa wada hadallo muhiim ah oo loo baahan yahay mudnaanta leedahay iyo in loo qaato nasiib darada ugu weyn waxa weeyaan oo Soomaaliya ka jirta xukuumad kasta oo ilaa laga soo bilaabo xukuumadii Sheekh Shariif ay ku xigtay Xasan Sheekh xukuumadan haddana ee waqtigeedii dhamaaday Farmaajo gidigooda waxa weeyaan waxay u arkaan waxa la yiraahdo wada hadallada waxa afka Ingiriisiga lagu yiraahdo photo opportunity waxa u yimaada European Unionka iyo Mareykanka u yimaada markaas waxa lagu yiraahdo xukuumaddiini ma la socotaan inaad 3 sanadood marasaan wali sawirkii lama qaadin oo idinkoo maaragtay sawir wada qaado la yiri wada hadlaan khuraafaada aan macna ku dhisneen aan laga shaqeynin aan loo diyaar garoobin oo u baahan mudnaantii rabtay in la siiyo markaas maxaa madax looga dhigaa madax waxa looga dhigaa qof ka yimi aanu dhulka iyo deegaanka aba aqoonin haddaad ku tiraahid may tusi kartaa magaalada la yiraahdo Burco iyo Laascaanood iyo Ceergaabe iyo Gabiley meesha ku taalo maabka kama tusi karaan kuwaas dawladahan intay u geeyaan bay yiraahdaan adiga negotiation galaya subax qura inta loo yiro diyaarad la raaco marka waxaasi waxa ay baabiisay oo niyad ku riday dadkii rabay inay wax ka qabtaan oo si dab oo dhacada arrimaha wax uga qabtaan marka wixii bay way qiimo beelayeen wixiina macna darray ka dhigeen annagu waxaan aaminsanahay waxay u baahan tahay in muddo dheer la geliyo 2 sanadood 3 sanadood khubaraada dunida waaweyn oo dhan oo la keeno laga hadlo arrimo badan la eego adoo marka arrintii u diyaar inaad wax ka qabatid laakiin waa isku sawiraya qof aan garanayn ba dhulku maraya oo diyaaradiisu sii marayso waxay yihiin aan kala garanaynin ba dawladdu intay dirto delegationkiisa madax ka yahay waxaasi waa waxyaalaha Soomaaliya baabiye oo dadka niyad jabkana ku riday ummadda Soomaaliyeed عبد الرحمن سؤاشيdu waxa weeye marka hore waa ku mahadsantahay fikradii ahayd in laga takhaluso prime ministerka oo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen waxaan u maleynayaa waxyaabo badan bay xal u helaysaa Soomaaliya siyaasadeeda su'aashaydu waxa weeye adugu waxa tahay nin US citizen saan u maleynayo fikradaadu seetahay in lagu daro nin walba oo xukunka Soomaaliya qabanaya oo darajo ilaa baarlamaanka ilaa madaxweynaha inay ka tanaasulaan citizenshipka wadamada kale waa gartay su'aal wanaagsan weeyaan waa kaaga jawaabaya waxa weeyaan kuwa aan hadda inii sheegayay oo aan inagu yiri khayraadkeeni waxa say bixiyaan waa Soomaali weeyaan sida citizenship waxba ma haystaan meesha waxa weeyaan waxa wax qabta waa damiirkaaga iyo shakhsiga iyo Soomaalinimadaada iyo waxa tahay taa weeyaan ta muhiimka kuwii haystay aan haysanin ba wadankii oo dhan bixiyay marka wadaninimadaada ku xidhantay waxaad adigu qabanaysaa taasi waa mid labaad waxa weeyaan
Soomaaliya dad badan baa waxaad moodaa maanta dagaalkii sokeeye markuu ka dhacay Soomaaliya maxay ku badbaaday Soomaaliya oo waxa lagu qiyaasaa 2 bilyan oo dollar oo lacagta la yiraahdo remittance ama lacagta dadku diraan ay u bidiraan dadka Soomaaliya badbaadiyay oo maanta Soomaaliya u baxay oo ilaaha mahadiisa waa dadka qurbaha jooga lacagta soo dira marka dadkaasi waa dadka dhisay oo business yaashii hada aragtay Muqdisho meel kasta dhisay oo maalgashiga ka saday waa dadka weeyaan waxa la eegayaa waxa tahay waxaad aaminsan tahay ficilkaaga la eegayaa anigu taasaan aaminsanahay بسم الله الرحمن الرحيم والله برشا ونكسن عبد الله باليرة هذا أد بنقول قناعي وحيالها أتكهد ليسد وحن ربائنا معركتي كيوغوري أداد إلهي بوسكا كوديو وحن ربائنا نقطة كيوغوري أو السماية شغالها الدولة ما قبان ريتايرمنت سراكيشي ودن كودرتي أو دنتي عرورتو دي حلو ما قبته مركوحن أنت من كقدر الله واحد تري واحد ونكسن وياه أضمن ولا دعسنا هاي congratulations والله. وما سنت هاي runtii waa su'aal wanaagsan weeyaan Soomaaliya dadka u dagaalamay oo runtii wali aan la maaragtay dad naftooda u hore iyo dunida kale oo dhan si kastaba ha noqotee dadkii wadanka danihiisa iyo qaranka Soomaaliyeed iyo magacooda iyo sharaftooda u dhintay ummadda Soomaaliyeed waxay ka istaahilaan mudnaan iyo sharaf iyo in la karaameeyo dadkii maxaan ku dhahay agoontii in wax maaragtay aad iyo aad loo tixgeliyo marka arintaasi waa arin qiimo weyn ugu fadhida hadii eebeed ma ilaahay fursadna siiyo arimahaasi waa arimaha runtii aad iyo aad aan jecelaynaa wax uga qabano aad baa ugu mahadsantahay su'aashaada السلام عليكم. وعليكم السلام. وحاتري دولة فدرال أياك ماشي كجرتا gobolada sida Puntland ama Hiiraan oo kale way ka madax banaan yihiin dawladda dhexe laakiin markay dhaqaale timaado dawladda dhexe ayaa wax kasta mas'uul ka ah dhulka federaalka ayaa xukuma Soomaaliya cirka federaalka ayaa bixiya badda federaalka bixiya haddii Kismaayo ceel batrool laga helo ma Jubbaland bisa leh kheyraadkaas mis Soomaaliya oo idil baale ilaa hadda sidee u socoto gobol wuxuu soo haystaa inuu dawlad gaar yahay qaar baa aaminsan haddii Hiiraan ceel laga helo Hiiraan kali inay leedahay labadaas marka inay kala cadeysaan rabaa waa gartay waa mahadsantahay arinta xog laan ka hayaa anigu sidaan ku yiri kheyraadka wadanka oo ah batroolka iyo macdanta iyo kheyraadka kale oo kalluumaysiga dastuurka Soomaaliyeed waxa ku qoran oo ku qeexan oo si aad ugu qeexan kheyraadka wadanka waxa wada la inay wada qaybsadaan dawladda federaalka iyo dawladaha xubinta ka dawladda sidaasay ku qoran marka hadii maanta tusaale ku soo qaado batrool laga helo beledweynaha hadii batrool laga helo sharciga u yaala wadanka waxa weeyaan meeshii laga helay ilaa 15% oo kala meelahaas oo kale baa xaq u leh in la siiyo laakiin intii kale oo soo hadhay waxa la qaybsanaya wadanka intiisii kale oo dhan baa la qaybsanaysa waayo wadanku waxa weeyaan waa hal wadan weeyaan gobolada qaar kood baa kheyraad laga heli kara qaar baa saboolan marka dadku noloshooda waa in la isu dheelitiraa marka dastuurkay ku qorantay waa federaal oo dhan dunida ka jira marka cid iskale oo gooniyo oo qoranaysa annaka gobolkayga baa laga helay annaka ma jiro annakuna heshiisyadan galay maalmo dhan baan wada hadalka sidoo maaragtay Cabdidaahir ku sheegay almost week dhan baan xamar joogno shanta madaxweyne maamul goboleed iyo ra'iisul wasaar khayr aan ka doodanay oo sidii loo qaybsan lahayo percentage-kii ka hadlanay marka anigu waxaan u arkaa nidaam wanaagsan weeyaan cadaaladna way ku jirtaa kheyraadkana wadanka oo dhan manaafacaadkiisa weyn qof kasta gaadha okay very good khayr weeyaan waa mahadsantihiin